waraysi ay samayntiisu qaadatay muddo 2 sano oo barnaamijka la hadal Horyaal TV uu la yeeshay fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo ayaa ka jawaabaya weydiimo ku saabsan dumintii gurigeeda shanta Soomaaliyeed ay u dhalatay calanka buluuga ee Soomaaliya ictiraafka Somaliland haddii gacanteeda la gelin lahaa inay siin lahayd inay u diidi lahayd hadal haynta heesteeda maangaab maansadii ay Siciid Maxamuud Gahayr isugu jawaabeen qorshaheeda sanadkan cusub geeli uu dhawaan saygeedu siiyay halka uu daaqo iyo xujada culus ee ay dul dhigtay qaranka Somaliland iyo beesha Samaroon waxaan qabaa maanta aqalkaygu jigjiga haduu ku wali lahaa inaad lama dumeen halkani waa qolkii hurdada qolkana waa qol labadan qol waa labadii qol aan ugu talagalay inay caruurtaydu seexdaan gurigan ayaa ku noolaan kara highwayga la dhexmariyay halkani baabuurtu maraysa waxa loogu talagalay in halkan wada noqoto oo traafigii uu maro halkeen kan taaganaysa wada ku tahay saasay wada ku tahay ilmo yar baan haystaa marka 1 mitir ba uma dhaxeeyo guriga 1 mitir ma hina talaabana uma dhaxayso gurigii iyo dawgii gurigii baa wuxuu noqday dawga bartankiisii caruur yar baan haystaa ilmo special need autism oo isku ordayaan haystaa iyagu mas'uuliyadda caruurtayda ma qaadayaan mid kamida muwaadiniinta halkani guryaha ka dhistay oo magaceeda la yiraahdo fanaanada Safiya Tusmo muuqaal ay soo duubtay waxay ka cabanaysaa qorshahan oo ay sheegtay in si aan sax ahayn iyada loo mariyay gurigeedii lagu tacadiyay oo laga dumiyay arintaasi ay idinku eedeynayso maxay idinku kaga jawaabaysaa wallahi marwo Safiya Tusmo iska ka dhaxgalnay qadiyadii siyaasadda iyo tii qowmiyadda Soomaaliya calanka Djibouti ka waran waliyada lagu ma arag ilaa isagu calan Soomaaliyeed ictiraafka Somaliland maanta hadii lagu yiraahdo adiga haya ma siin lahayd Safiya calankii buluuga ahaan halkan lagama ogola adna calankii buluuga ahaa oo aad ku sawiran tahay ayaa la soo helay sidaad labadii isugu wadan karaysa horta hadii calankuun hadii la tago beeshaad magac dhawday ee Samaroon iyo qarankii Somaliland ee isagana magaciisa soo hadal qaatay xujada hadii ay iska soo furaan sanadkan sii dhamaanaya 2012 kamaal dhaweyd waxaad sheegtay inuu hadal hayn kugu bishay hadal hayn imika kugu soo dhamaaday hadii taa imika iyada xujada laga soo furo qorshahaaga cusub sanadka 2022 aad ku waajihi lahayd muxuu noqon lahaa horta aanu qorshaan lahayo hadayna qorshe burburkan deewna iga burburin adiga ku dhaado si hadal hayntaadan faraha badatay muddooyinkii u dambeeyay aad uga baxdid oo hadal haynta aad u yaraysid oo noloshaada caadiga aad u wadatid miyaanay kula muuqan waxyaalaha loo arki kara in jawaab ay yihiin inaad ka dheeraato imka Siciid Maxamuud Gahayr oo kale maalin maansaad u soo tirsayna maansu kugu soo jawaab taasi miyaanay keenaynin isu jawaabku inuu mar walba sii socdo horta Siciid Maxamuud Gahayr wuxuu ahaa dadkii sanadkan bilowgoodii dagaal aanan filayn igu soo qaaday kooxdii aan haynay inankani waa fahmin maalintii markuu ii sheegayna wuxuu igu yiri Safiya walaalo teestaasaan wataa heestu qisada bay leedahay waxaan islahaa markuu heesta aan ka qaaday wuxuu igu yiri waxaan islahaa maadaama aan ahay buu yiri wiil ma aragtay haybtaas oo reerkaas oo ciidagala ah Safiya Tusmo heeska qaadan mayso xisaan qaaday oo soo socda way jiraan oo tan ka daraan doona oo la oran doono oh my god meeshii bay duqaynaysaa geeli dhawaan Cabdilaahi Aare ku siiyay xaquu ku daaqaa Safiya imika horta geeli waa kan gurigayga galaaftay aad ma hasan tahay waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa Cabdishakuur oo ah Safiya Yunus Jaamac walaalkeed daba daawadayaal barnaamijkan oo dhameystiran waxa daawan doontaan 3 bishan koobaad habeenka Isniineed ee Salaasadu ay soo galayso ka daawo Horyaal 24 TV saacada bariga Afrika markay tahay 9:45 daqiiqo habeenimo